laba ka mid ah iyaga waxay maalintaas qudheeda ku socday tuulo loo dhan jiray Emmaus tan Yerusalem ku jirtay 6 istaadiyo. waxay ka wada hadlayeen wixii dhacay oo dhan oo waxay noqotay intay wada hadlayeen oo wax isweydiinayeen in Ciise qudhiisa u soo dhawaado oo la socdo. laakiin waa la intisaabay si ay u garanayn. markaasuu ku yidhi maxay yihiin hadalladan aad isku haysaan intaad socotaan? wayna istaageen iyagoo fool qulubsan. midkood oo Kleopas la odhan jiray ayaa u sheegay oo ku yidhi ma adigoo keliya oo Yerusalem degan oo aan ogeyn wixii ayaabahan meeshaas ka dhacay? wuxuu ku yidhi wax maxay ah? waxay ku yidhaahdeen wixii ku saabsanaa ciisihii reer Naasaret, kii ahaa nin nebi ah oo xoog u lahaa wax falniin iyo hadal ah Ilaah iyo dadka oo dhan hortooda, iyo sidii wadaadada sare iyo taliyayaasheenii ugu dhiibeen in dhimasho lagu xukumo oo isku tallaabta ay ku qodbeen. laakiin waxaannu rajaynay inuu yahay kan Israa'iil soo furan lahaa. laakiin waxaas oo dhan weliba maanta waa oo maalintii saddexaad markii ay waxaas oo dhammi dhaceen. weliba dumar annaga naga mid ah ayaa naga yaabsiiyey kuwii aroortii hore xabaashii tegey. goortii ay meedkiisii waayeen ayay yimaadeen iyagoo leh waxaannu weliba aragnay muuqad malaa'igo kuwa yidhi wuu nool yahay. qaarkood oo nala joogay ayaa xabaashii tegey oo waxay arkeen sidii dumarku yidhi, laakiin isagase ma ay arkeen. markaasuu ku yidhi nacasyayahow oo qalbigoodu ka raagay inuu rumaysto wixii nebiyada oo dhammi ay ka hadleen. masiixa miyaanay waajib ku ahayn inuu waxaas oo dhan ku silco oo uu ammaantiisa galo? markaasuu ka bilaabay Muuse iyo nebiyada oo dhan. qorniinka oo dhan ayuu ugu micneeyey wixii isaga qudhiisa ku saabsanaa. bartaasay ku soo dhawaadeen tuuladii ku socdeen, isaguna wuxuu iska dhigay mid sii fumaynaya. laakiin way ogolaysiiyeen iyagoo leh nala joog, waayo maqribku waa dhow yahay, maalintiina durba waa dhammaatay. markaasuu la galay inuu la joogo. waxaa dhacay kolkuu cunto ula fadhiistay inuu kibis qaaday oo barakeeyey oo intuu kala jijibiyey ayuu siiyey. markaasaa indhahoodu furmeen oo isagay garteen, wuuna ka libdhay. markaasay isku yidhaahdeen miyaan qalbigeennu gubanin intuu jidka inagula hadlayay iyo intuu qorniinkii inoo furayey? saacaddaas qudhooda ayay kaceen oo Yerusalem ku noqdeen. waxayna arkeen 11 iyo kuwii la shiray oo isu ururay iyagoo leh huwaal sayidku waa sare kacay oo wuxuu muuqday Simoon. iyaguna waxay ka warrameen wixii jidka ka dhacay iyo siday isaga ugu garteen kala jijabintii kibista.